marka ninka uu guursado afar xaas baahidii dumarka uu qabay intaas ma ku ilaata no ma ku ilaantaas sababna raaci well كو لبا صدح أفر واضح حرته وباهدي يعني دينته waxay banaan tahay yani in la guursado afar xaas adigana waad aaminsantahay sida absolutely nin $100 ku shaqeeyaad leedahay hasiib badiyo marka maadaama taa aaminsantahay baahida intaas ku soo xirmaysaa ma baahida intaas ku soo xirmaysaa annaga horta waxaan dal islaama qaacidada islaamkan raacsanahay ninka ragga ah waxa loo ogol yahay afar xaas inuu ku ekaado waxa arintaas wax ka bedeli kara oo dumarka la ku soo dari kara hadii intuu dagaal galo islaam ah oo soo xoreysto ama soo qabsado adoona uu ku dari kara laakiin gabar xor ah iyo ka badanba laakiin gabar xor ah marka guursanaysa xadkaagu afar wa which means marka lagu leeyahay wuu ku dari kara waxa taas ku cadeynaysa baahida uu u qabo dumar ama loo qabi karo dumar inaysan inta kaliya ku ekayn marka ma ku eka dadkuna waa kala jiraan oo waa kala duwan yihiin waxa tahay afar xaasan afartaada gabdhood isku sima u jeceshahay bisamid gaar ah jeceshahay runtii ninba hadda kor waxa la yiri qisa cajiib oo waxaan hadda kor dhageystay ninba waxa la yiri aashana waad iga jawaabisaa waa kaaga jawaaba hadii hal yiraahdo ninba waxa la yiri afartiisa xaas baa waxay ku doodeen baa la yiri tuu jecel yahay maalin dambe intuu u yeeru yiri waxay ku qasbeen inuu u sheego intuu u yeeray buu yiri taan dhabarka ka taabto ayaan jeclaa afartoodu sii jeeday afartaba dhabarku ka taabtay public tv marka ina hadaan dhaho mina jeclaa gooniya waxaan galayaa waa arrin khatara laakiin xaqiiqdu waxay tahay qalbiga inuuna hal qaadeen xaqiiqdu waxay tahay qalbigu xabad ka badan waa qaadi karaa xaqiiqdu waxay tahay wax kasta oo qofka bini aadamka ah waa markaan si scientifically aan kaaga jawaabo xaqiiqa qofka bini aadamka ah ama ha aato ilmo uu dhalay ama ha aato xaasas uu qabo ama ha aato saaxiibo uu leeyahay waxa la yiraahdo rabitaanka ama jacaylku wuxuu leeyahay degrees kala duwan uu leeyahay waxa xaqiiqa oo qof bini aadamhi uusan diidi karin marnaba nin kasta oo afar xaas la afartaas xaas qalbigiisa inay ku kala wan yihiin lama diidi karo waa wax xaqiiqa oo waxaan la diidi karin waa wax qof kasta oo binaadamka waa human nature waa dhaqanka bini aadamka waa sunnadii ilaahay lama diidi kartaas aniguna waxaan qof bini aadana oo de kama gudbi kartaas laakiin waxaan rabaa ragga Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed inaan u sheego ma aha hadii Allah subhanahu wa ta'ala uu kugu nicmeeyay afar xaas ama labo ama saddex uu kugu nicmeeyay ma aha in aad banaanka la timaado ama aad u sheegto tiraado heblan ka jeclahay waa qalad wixii kugu jiray aday kugu jiraan adig waxa lagu amray in cadaalad samaysid waana qaabka wacan ee reer loo dhaqo gabdhahaygu ima weydiin su'aashaas because waxa naga dhaxaysa kalsooni ah inaan kulligood jeclahay kulligoodna waa jeclahay ma sha Allah ugu dambeyntii maxaad u soo jeedinaysaa dhalinyarada ku daawanayso dadka qaarkoodna yani adiga sida aaminsan tahay wayna fiican tahay oo diinta islaamka macnaha guurkii iyo diintii waa iswaafajinaysaa laakiin dadka iyagoo baahidoodii waxaas fiirnaay oo halka xaas qaar baa ku qanacsan qaar baa afarta ku qanacsan adiga ma waxa aaminsan tahay yani kii hal xaas qabo afar ku fakar ma leedahay waxaan leeyahay kii hal xaas qabo afar ku fakar exactly taas qaacidada saxda ah oo islaamka ninka islaamka laga rabo hadiiba uuba inuu ku fakaro si uu u gaaro meeshaas bini aadamka waxaan rabaa inaan iraahdo shacabka Soomaaliyeed dhalinyarada ma wala wiilasha ninka markaas ka bacdi guursada dheh hadda ninka sabab shaqaystaaba rag waa shaqaystaan kulligood may kuwa aan shaqaysano oo naaka fakaraya jira hadda ninka aan shaqaysanayn naaka fakaraya it means shaqadii uga soo horeysa oo macnaha naagu ka fakaraya shaqadii ma sheegayo uusan sheegin shaqadii inuu ka fakarayo maani way uga soo horeysaaba oo given why that is something oo uu qasab inuu sameeyo waxaan rabaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed inaan la wadaago sirta guurka iyo jacaylkuba waa runta ergaas waxaan rabaa in dhalinyarada Soomaaliyeed especially wiilasha ragga odayaasha waxay rabaan baadine inay runta sheegaan qudbasiro waa qurun waana khasaaro
in aad gabadha aad qabto aad ka qariso gabar kale oo aad qabto gabdhaha waxay ku tahay disrespect xushmad darro waa wax xaqiiqa waa waxaan soo ogaaday waa wax ragga intooda badan oo macquulka ama mutacalimiinta ay og yihiin wax gabari ay ka jeceshahay ama qof dumari ay ka jeceshahay oo runta ka fiican oo ninkeeda afkeeda ka soo baxay ma jiraan marka waxaan leeyahay ragga dhalinyarada iyo meel dhaxaadka iyo odayaashaba inta waxaan leeyahay sirta jacaylka iyo reer wanaagsani waa runta sheeg runta haddaad sheegtid wax walba ku hagaagayaan waxaan kaloo leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed u sheegaya haddaad aaminsan tahay in aad faqri uga baxaysid ama qalbigaaga ninka qalbigiisa uu kugu jeclaanayo kaliga haddii kaliga uu ku qabo walaal waa qaldanta waxaan ku qaldan tahay isla miisaan inta gabdhood oo la qabo oo 3 iyo 4 oo farxad ku nool iyo inta gabar kaligeed la qabo waliba waxa badan kuwa kaligood la qabo 4 iyo 20 saac kala tagaya 4 xaasa ila 4 gabdhood oo la qabo ila dhanka farxadda yani kuwa halka ay la rabo no absolutely waxa ku diidaya kowsar numberka ku diidaya qayb kafta waa loo kala xanaaqaan absolutely laakiin waxa ku diidaya tirada waxa ku diidaya xisaabta ku diidaysa hadii la fiiriyo gabdhaha Soomaaliyeed ama ragga Soomaaliyeed intooda badan waxa waaye halu qaba inta badan ragga Soomaaliyeed waxaana furitaanku ku badan yahay ninka halka xabba qaba usually ninku markuu 2 qabo ama 3 qabo ama 4 qabo furitaankii waa ka soo baxay waa degay markaas hadduu xataa markuu intuusan soo gaarin ama waqti hore uu 1 iyo 2 soo furay waa waqti degan waa soo gabadhu macnaha gabadha ogolaatay ama masayrku uu ku yaryahay ee naag kale gabar kale la qabo sidii ay reerkaas ku dudumisahay aad ay u adag tahay marka loo fiiriyo gabadha kaligeed la qabo tusaale waxaan rabaa ragga inaan u sheego haddii gabadha marka ugu horeysa markaa shukaansanaysa haddaa ku tirahdid maalan haddaa ku tirahdid aniga nin islaam aan ahay ilaaha ii baneeyey ka waran hadday ku tiraahdo ballan ii qaadinaadan weliga ila guursanayn ka leexa markaas simple okay ragga oo maxaa u soo jeedinaysaa isla ragga ku darso rag waxaa jira guursaday ama hal ha guursadeen ama 4 ama 3 soo guursadeen ilmo dhaleen ilmahoodiina dayaceen mas'uuliyadoodii aan ka soo bixinin tii diiniin iyo tii maaragtay dhan walba noqotaba wayna nugu badan yihiin haddana population ka Soomaaliya absolutely waa badan yihiin fundamentally runtii aas waxa uu arintaas horta arintaas waa qalad waxaan kula talinayaa nin kasta oo Soomaaliyeed aniga xataa marka la igu daro in uu isku dayo in uu noqdo wadani islaama wadani islaam markaan ku leeyahay waxaan ka wadaa wiilka ama gabadha marka aad dhasho haddaad ka tagto hooyada uga tagto waxa ka soo baxay moog hooyadood uga tagto hooyada ma dhihin hooyada ama xataa hooyada ama cid ku korsad uga tagto waxa ka soo baxay adiga moog waxa ka soo baxayna waxay u badan tahay inuusan qofkaasi qof islaam oo fiican uusan noqonin ama wadani uusan noqonin gabdhaha ciyaal suuqa iyo ragga ciyaal suuqa ay 90% ama kuwa muqaddaraadka isticmaala intooda badan waxay ka yimaadaan ilmo adoogii uu ka tagay marka waxaan leeyahay ragga Soomaaliyeed walaal islaamnimada wadaninimada waxay ku jirtaa meesha aad ku qubaysatay inaad ku qalajisto gabadha aad ilmaha ka dhashay inaad la joogto haddii xataa aad kala tagtaan inaad ilmahaagii ka haajirin ee aad ogaateen nafaqadooda sida Allah waajib kaaga dhigay Sufyaan Sheekh Axmed oo barnaamijkan marti igu aha isla markaasna ka hadlayay arrimaha qoyska talooyin badan soo jeediyay iyo waliba muhiimadda 4 xaas ee la guursado oo ragga ay guursadaan iyo waliba caqabadaha ka dhasho faa'iidooyinka laga faa'iido waxyaalo badan ayaad ku daawateen barnaamijka Sufyaan aad ma hasantaa thank you very much